بسم الله الرحمن الرحيم داود يالو مركله iyo barnaamijkeeni dhambaal waynu aalaaba ku soo qaadano usbuuci hal موضوع maanta wuxuu ku saabsan yahay saabinta nafta Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu ina abuuray ee uu ina jirsiyay jidwal oo abuuray wuxuu ka afuufay ruux ama naf naftaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii u soo dajiyay rasuul u soo diray kutub u soo dajiyay naftaas la xisaabinaya dab waxaan isweydiinanaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wadigaarko markuu qofka nafta ka qaado jidhku nafc badan ma laha oo markaaba waxa la oranayaa habeel waa meed markaas loo degdegay xabaashi markaas la aasaya laakiin qofku wuxuu sharaf iyo qiime iyo qadarin ku leeyahay waa inta nafta ay ku jirto waliba is weydiisay oo ma istiri naftaada ma xisaabisay su'aashani maanta doonayna in dul istaagnaa wata muhaasabatu nafs culimadu markay ka waramayaan siyaabo fara badan oo balaaran bay uga waramaan laakiin bal inagu waynu soo ururinaa maadaama waqtiga aynu haysano uu kooban yahay muhaasabatu nafs waxay yiraahdaan culimadu laba xaaladood bay u qaybsantaa inuu qofku naftiisa xisaabiyo mid xaaladda koobaad ee qofku markuu doonayo inuu amal ku dhaqaaqo amal sameeyo shaqo qabto talaabo u qaado intaanu qaadin kor uu xisaabtamaya markaas uu isweydiinaya oranaya waxaan aad sameynaysaa maxaa kugu jira faa'iido maxaad ka faa'iideysaa maxaad khasaaro ku helaysaa marka talaabada ugu horeysa waa xisaabta koobaad ama xisaabinta qaybta koobaad dabcan haddii qofku taa uu ku dadaalo waxa ka dhalanaya afcaal fara badan iyo falal fara badan oo inaga soo fila inay noqdaan qaar taxta saytara ah ama under control ah oo aan iska sii deysnayn ama qofku aan wala sameeyaan ahayn marka qofku wax laga yaabaa inuu waxyaabo fara badan kaga badbaado naftiisana uu ku ilaaliyo halkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka doonay qodobka labaad ama qaybta labaad ee muhaasabatu nafs waxa culimadu ku tilmaamaan inay waa bacda al-amal ama bacda at-ta'ab qofku markuu amalka qabto kadib waanu isqiimeeyo waanu xisaabtamo ganacsiga waxaan ku noqonaa qofku markuu alaab soo iibsanayo alaab suuqi ka soconaysa ku munaasab ah waqtigeedii taagan waxyaabo fara badan buu eega inta kuma istaagay alaabta markuu suuqa galiyo ee uu iibiyo marka wax ka soo galaan ama laga iibsado oo xisaabtama miyad faa'iido mise khasaartay qaybta labaad marka muhaasabatu nafs waa qofku in uu xisaabtamo oo isweydiiyo yiraahdo amal baad qabatay amalkaad qabatay miyad ku faa'iiday miyad ku khasaartay Ilaahay raali ma ka aha bis raali kamu ahay waan isweydiiso imaamka weynaaye Hasan al-Basri ayaa waxa uu leeyahay rahimallahu imra'an aw rahimallahu 'abdan waqafa 'inda hammi wala firso qaybta hore xiriirleed muhaasabadii hore qayb Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoon ha u naxariis istaagay markuu doonay inuu talaabo qaado deeto wuxuu eego yiri fa in kana lillahi mada hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan raali ka yahayna hore ugu socdo hadii aan raali ka ahayna uu ka dib dhaxay اوكي استاغ marka muhaasabatu nafs waa shay qaali oo qiimo badan imaamkii jaliilka ahaa saxaabiga qiimaha badnaa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wakiilha hasibu anfusakum qabla an tuhasabu nafina hisabiya inta la xisaabin ka hor Ilaahay subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim sidoo meelo badan ku aragnay uu inoo tilmaamay in dadku ay xisaabtamaan oo xisaabi ka dambayso fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira dhinaca kale hadaynu eegno bal fiirso Ilaahay subhanahu wa ta'ala yasmi'u rasuulkii lagu soo diray ma raacday waxyigii lagu soo dajiyay ma qaadatay Ilaahay wuxuu ka sheekeynaa fi al-Qur'an al-Karim fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun Ilaahay subhanahu wa ta'ala isoo ku dhaaray naftiisa ayaa wuxuu leeyahay waxa la weydiin doonaa dhamaantood wixii ay falayna ma sameeyeen suuratu hijr aayada 92 ila 93 aayada bilowga fi suurati a'raf nawaka Ilaahay subhanahu wa ta'ala kule فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وحلو يدين يددكي وحلو صدري فلنسألن الذين أرسل إليهم سيدو كلا وحل حسابين إياه أو دلال حسابتم إياه ولنسألن المرسلين بلو في رسول الله سبحانه وتعالى مركل وحوليه في سورة الأحزاب آية استعداد ليسأل الصادقين عن صدقهم قد هذا وحوليه bal waxaad ka warantaa kuwii runta sheegay marka runtooda la xisaabiyo kuwii beenta sheegay ama aan runtaba ehlo ahayn arrinkooda muxuu noqonayaa uu adkaanaya marka qofka la weydiiyo rasuulkii loo soo diray marka la wareysto ee la xisaabiyo kii loo soo diray maxaad u meenaysaa intaas walaalayaal waa tusaalaha guud laakiin waxaan jecelahay inaan naftayda iyo nafihiinaba ku waanin inaynu xisaabtan maalmaha aynu ka haysano إنه الدنيا جوجنا ومعلومات كوب. بلو فرصة معلومتي وأفريل 20 ساعات. ساعة ولا بانا ولا 1 دقيقة. دقيقة ولا بانا ولا 1 سكة. أسبوعي وتضوى معلومات. بشي وصد أنا ما استقال لعبات. سنة كي وصد بقولي لي. بلو فرصة ما أنت إحنا جوجنا بشي فبراير بلو جيت. شلون يبينون الحين سنة كي 2023 وبلو وحول بابا ساسو صعدة. haddii aynaan xisaabtamin raasamaal badan oo xisaabsanana ama cibaadooyin badan oo isku geysanana haddii aynaan u meeldayn khatar badan bay ku sugayeen salaad baad tukataa
maxaad ka dabageys ilaahay salaada miyaanu inooga warramin inuu inooran inna as-salaata tanhaa 'anil fahshaa'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un salaadaadu miyaa taa ku sifaysan tahay rasuulkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa uu lahaa sallu kama ra'aytumuni usalli waxaad u tukataan sidaad aniga aragtaan inuu u tukanayo salaadaadu tii nabi maxamed ma tahay soomkaagu kii nabi maxamed mu yahay zakadaadu tii nabi maxamed ma tahay noloshaada oo dhan ma yahay mid islaamku dabray wali ma is xisaabisay fursad baynu haysanaa intay maanta naftu inagu jiraan inuu is xisaabinano naftu inaga bixi fursad aynu ku sixi karno wixii hore inooga qaldamay fursad aynu ku toosin karno waxa soo socda ee aynu hore u qaladnay aynu maanta haysan nafteena aynu xisaabin si marka aynu u gaadhno guul qofka la xisaabiyo waa la niqaashi qofka la niqaashana waa la cadaabay rasuulkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa tilmaamay su'aalo aad iyo aad u fara badan bayna sugaya ilaahay subhanahu wa ta'ala su'aalaha inoo dhib yareeyo ha inoo fudaydiyo inaynu nafteena la xisaabtanana ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo fudaydiyo inahaasina kusoo gabagabeynana aad iyo aad bad maasantiin walaalayaal wajazaakumullahu khayr subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk